Sportiga Tager. Sportiga Tager. Sportiga Tager. Sportiga Tager. Sportiga Tutita. 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 Sportiga Tager. Sportiga Tager. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر هذا برنامج كفاقدة عيارها وتضوات كي حال جير إذا كي مانيا تلفزيون كقرن كصوماليات تضوات كان مهذيك قالت برنامج كفاقدة عيارها وحامرتي وقع حوجيها جود حرير ككبد عيارها صوماليا أما صوماليا من الفوتبول عدوى بسيطة أو تقانو مدن حاج آدن عبد الله مهدي marka hore kusoo dhawow mudan xogeeye telefishinka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan martida aad ku tahay waa mahadsantahay biibaaye waan ku dhawahay waan kaga mahadcelinayaa waqtiga aad barnaamijka u soo urtay mudan xogeeye waxaan jeclaan lahayn inaad nala wadaagto waxqabadkii sanadlaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda ciyaaraha oo aad xogeyaha guud aad ka tahay maadaama bisha aynu ku gudjino koodeeda aad u dabaaldegteen muddada uu sanad jirsada xiriirka kubadda ciyaaraha Soomaaliya bal waxqabadkii muddada sanadka aad qabateen iyo waxyaalaha idinku soo kordhay tartamada aad ka qayb qaadateen bismillaah waa mahadsantahay biibaaye sidaa la socoto xiriirka mini footballka oo Soomaaliya waxaa la aqoonsaday koodii bishii November laakiin asaaskiisa oo ka horreeyay marka waxaan kasoo qaadanay aqoonsiga ayaan kasoo qaadanay in aan u dabaaldegno maalintii la asaasan aan ka dhignay xiriirka mini footballka Soomaaliya muddada sanadkeeda aan jirnay qorshihii aan samaysanay markii aan aasaasayna barnaamijka iyo muddada halka sanad wixii aan qabsoomay aad ay u kala fogyihiin sababtoo ah wixii aan qorshaysanay iyo wixii aan qabanay waxaa ka batay wixii aan qabanay sababta ay u dhacday arrintaasna waxay tahay dadweynaha Soomaaliyeed Soomaali ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba dhiirigelinta ay la siiyeen iyo soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen mini footballka iyo iyadoo markaas loo arkayay in mini footballka uu yahay wax loo baahnay isla markaasna Soomaaliya soo gaaray xilliga loogu talagalay ama xilliga loo baahnaa soo gaaray ayaa keentay in mini footballka Soomaaliya qorshihiisa uu dhaafo qorshe aan ku talagalnay saddex jubaar aan leeyahay karnaa ayaan gaarnay mini footballka guulaha uu gaaray sanadka waxaan kasoo qaadan karnaa 6 bilood ugu horreysay waxaan soo koobnay gobolada Soomaaliya oo laga soo bilaabo Kismaayo oo aan kaga dhawaaqno barnaamijka ilaa Iboore baan ku tagnay oo aan soo koobnay 10 gobol ee Soomaaliya guulo badan ayaa la gaaray gudaha waxaa laga gaaray in gobol walba aan kasoo dhisno xiriirka goboleedka aan kasoo dhisno qaarkoodna aan u dhaafno xiriirka degmooyinka inaan soo dhisno taasoo aan ku guuleysano runtii waxaa jirta marka in la sameeyey horyaaladii gobolada in la sameeyey inkastoo qaarkood weli ay dhiman yihiin balse horyaaladii gobolada inta badan waa la sameeyey waxaa arkaysaa gobolada qaarkood oo maalintii aan magacawnay ama doorashada ay ka dhacday ilaahdii magacaabis ma jirin doorashaa jirta xiriirkeena xilligii doorashada ay ka dhacday ilaa ay maanta sameynayo horyaalo isla markaasna ciyaaro kale oo kala duwan sameynayo kasoo bilaabo ilmaha grassrootka ilaa iyo dadka professionalka ee weyn sameynayay markii Soomaaliya laga gudbo oo guulahaas aan kasoo hoynay runtii iyo aqoonsi aan ka helnay bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xataa haweenka oo yani nala shaqeynayaan markaa tusaale kasoo qaadato haweenka gobolka banaadir oo kale la shaqeynayaan mini footballka waxaan gaarnay guulo kuwaas ka duwan oo aan ka gaarnay dibadaha waxaa ugu horeyso in ciyaaraha koobka adduunka lagu qabanayo qaaradda Afrika waddanka Tunisia sida aad la socotaan ama bahda mini footballka ka daragsan yihiin wafdi aan u dirnay Hungary wafdiga Hungary aan u dirnay kaliya inay meesha ka qaybgalaan uma istigin balse waxay u tageen inay loo bin ama u sameeyaan campaign inay u sameeyaan in ciyaaraha adduunka ee mini footballka markii ugu horeysay lagu qabto qaaradda Afrika inagoo campaign u sameeynay waddanka Tunisia isla markaasna gudoomiyada u yahay gudoomiyaha qaaradda Afrika taas waxay keentay in si fudud aan ugu guuleysano roolkii ama doorkii ugu muhiimsanaa campaignkaasna loo aqoonsaday inay qaadatay Soomaaliya xiriirkeeda oo horkacay gudoomiyaha Cabdiqaadir Cadaay iyo Cabdixaaq oo gudoomiye waxay ka ahay waxaa kaloo ku guuleysanay taariikhda markii ugu horeysay Soomaaliya kaliya ma aha laakiin adduunka qaarad
qabsanaysa event sida ciyaaraha qaramada koobka kubadda cagta ee Yurub oo kale oo mar dhow dhamaaday waxaa barbar socday koobkaas lamid ah oo mini footballka oo ka dhacay Hungary isugu imaanaysa 2 dowladood oo ka socota Yurub waxaa waday xiriirka mini footballka qaaradda Yurub laakiin waxay ogolaadeen in garsoore Soomaaliyeed oo ka socda mini footballka Soomaaliya uu qabto ciyaarta furitaanka uuna dhameystiro ilaa iyo ciyaarta finalkeed oo uu ka ahaa afarta garsoore mid kamid ah guushaas waxay noqotay guul taariikhi ah runtii anaga laftirkeena ididiilo badan gelisay inaan sii dhaqaaqno dhismihii waxaa bilowday xiriirada qaaradda Yurub aan ka dhisayna diaspora Soomaalida sababtoo ah sida ala socoto kubadda cagta iyo mini footballka differencegooda ama kala duwanaanshooda horna u sheegnay haddana waxaan rabaa in ku celiyo kubadda cagta markaa maqashid waxaa kugu soo dhacaysa 11 ciyaartoy iyo 11 ciyaartoy oo ciyaarayso waa standardkeeda iyo sharcigeeda 11 iyo 22 ciyaartoy inay garoon galaan waxay ka yaraado oo 8 ciyaartoy iyo 7 ciyaartoy iyo 6 ciyaartoy automatically waxay noqonayaan kubadda cagta ay noqonayaan ciyaaraha Yurub lagu dheelo oo diaspora ay dheelaan inta badan waa mini football balse sida waraysi Korea ku sheegnay mini footballka ama kubadda cagaraha Soomaaliya iska ciyaaraysa waxa ka maqnaa sharcigii iyo xiriirka maamulka ka maqnaa xiriirka maamulka iyo sharciga markuu yimaado kubadda cagta wixii la dhihi jiray ee 11 lagu ciyaari jiray kubadda cagta ku ekaatay halkan waxaa imaaday tirada yar waxay noqdeen automatically mini football noqdeen qaaradda Yurub oo kale waxa weyn Ingiriiska oo kale weyn oo aan ka sameeyay xiriir oo hogaaminayo ninkii la yiraahdo Cabdiqaadir ninkii la yiraahdo Dacar la yiraahdo gudoomiye Dacar oo gudoomiyaha mini footballka UK ciyaar lagu qaban jiray meeshaas la dhihi jiray kubadda cagta horyaalka ama koobka kubadda cagta ee hebel ama koobka munaasabada la dhihi jiray automatically waxay isu bedeleen koobka mini footballka isu bedeleen sababtoo meesha waxaa ka maqnaa Soomaalida oo dhan waxaa ka maqnaa wixii lugta lagu leeyahay oo dhan kubadda cagta ka wada jireen laakiin adduunyada inay kala bixisay oo mini football loo kala baxshay kubadda cagta ama kubadda cagta iyo kubadda cagta loo kala baxshay qofba maalin soo gaaraysay Ingiriisku way gaartay runtii si fiican looga qaatay maanta kadib waxaan rajaynaynaa koobka lagu dhigayo waxay 11 kubadda cagta noqon doonaan waxa kale oo ka yaqaan waxay noqon doonaan insha Allah taala koobka lagu qaban jiray waxa maqal jirtay koobka kubadda cagta ee Faransiiska oo lagu qabanayo tusaale markuu soo qaato Ingiriiska kale lagu qabanayo la isaga imaanay dunida dacaladeeda koobkaas lagu ciyaaray 11 laakiin lagu ciyaarayay numberka oo mini football lagu ciyaarayay marka wada fariisanay wax walba waxay ku dhamaadeen in mini footballka ay yihiin hase yeeshee kubadda cagta doorkeeda weli way leedahay oo yani 11ka sida professionalka ama standardka lagu ciyaaro wixii magaceedu waxay noqonaysaa kubadda cagta insha Allah waa tahay mudan xogeeya markaan ka soo tagno wax qabadkii sanadkii ishaga muddo uu sanad tirsaday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya bal ma jiraan safaro oo aad dalka dibadiisa aad ugu baxdeen muddadaasi aad jirteen oo aad ciyaartooy ama tababar ha noqdaan ama ciyaaro kala duwan aad ka gashaan ma jiraan anaga bismillaah waxaan ugu horeysay ciyaarihii lagu qabanayay waddanka Brazil oo aan muddo dheer sheegaynay oo la jiray F5 Club Championship oo ala socotaan in guddiga maamulaya ciyaaraha xataa hadiido ay nagu soo dhiibeen xiriirka ciyaaraha fudud oo ka qayb galay ciyaarihii Olympic ka dhacay Brazil xiriirkeena uu jiraa wuuna fiican wuuna xoogaystay waliba waxa arkaysaa ninka mas'uulka ka Brazil leeyahay inuu waraysiisay raadiyaha localka Soomaaliya soo kaga hadlay koobkaas ama F5 Club Championship lagu qabanayo Rio de Janeiro iyo yani xiriirka oo mar walba la soo sameeyo mini footballka Soomaaliya oo u arko inay xiriir shaqo badan oo la sida World Mini Football laftiisa oo aqoonsan xiriirka inuu yahay xiriirada mini footballka ee ka dhisan caalamka qaarad walba ka yimaada xiriirka ugu shaqada badan waxyaabahaas oo dhan oo dhacayo iyadoo ay jirto ayaa F5 Club Championship wala socota Brazil marka Olympic la dhigay cudurka oo malaariyada kaneecada oo Zika virus oo ka jiray oo lagu celin waayay in ciyaarihii waqtigooda oo soo gudagalay oo aan la helin waqti kale darteed lagu qabtay qolada F5 Club Championship waxay awoodi waayeen inay ku qabtaan iyadoo cudurkaas oo jira dawladda involvementkeeda ay dib ay ula noqotay so sanad soo lagu qabanaya Johannesburg lagu qabanaya oo lagu heshiiyay South Africa insha Allah hadii la yiraahdo ayaduna waa ka qayb galina waxa kale jirta safarka ugu soo horeeyo Soomaaliya weli safarka ma qayb galin oo ciyaartoy intiqaabtay dibadda kuma soo ciyaarin waa dareemi kartaa muddada aan jirno laakiin iyo waliba oo divisions ama Serie A waxa la jiro aan weli sameeynin maadaama ka soo bilaabno hoos ka soo bilaabnay laakiin sadkan qorshaha inuu jirto inaan sameeyno divisions aan sameeyno Soomaaliya ka sameeyno division 1 division 2 division 3 insha Allah laakiin waxa jiro in aan hadda aan aasaaskada wadno bisha March ilaa Tunisia ay xilay doonto
oo aan ku infitaareysanahay ciyaartaas Soomaaliya waxay ka qaybgalaysaa isreebka koobka adduunka ee mid footballka ka dhacay Tunisia bisha Oktoobar 2017 koobkaas marka ciyaartooyda aan xulayno waa ciyaartooy Soomaali ah oo aan dhehaynin kaliya ciyaartooyda ku nool Soomaaliya balse aan dhehayno ciyaartooy walba ee jinsiyadiisa ay Soomaali tahay adduunyada meel walba uu ku nool yahay fursadaan sii haynaa inuu ka qayb galo oo matalo qaranka Soomaaliya ciyaarta aan ka qayb galin waa la socotaa macallin laba macallin oo xulnay oo caalami ah aba Soomaalida iska taqaano oo Ismaan May Scott iyo macallin Nuuc Xuseen Xasan oo isagana ah gudoomiyaha mini footballka qaaradda Yurub habeen dhaweyta loo doortay oo dadka Yurub isu imaadeen u doorteen labaas macallin iyo ciyaartooy Soomaaliyeed oo qaarkoodna laga qaadayo Soomaaliya Muqdisho fadhiya laga qaadayo Soomaaliya iyo adduunyada meesha kale la lageenayo bisha Maaj insha Allah taala tartankaas aan ugu horeey waxaan rajaynaynaa haddii Soomaaliya ay guuleysato meel badan waa ka sheegnay Soomaaliya haddii guuleysato automatically waxay ka qaybgalaysaa koobkaas ka qaybgalaysaa waxaan rajaynayaa in la ciyaaro Cameroon la ciyaaro doono insha Allah taala haddii la yiraahdo weliba aan ka fiicannahay markii la yiraahdo mini football aan ka fiicannahay insha Allah waa tahay tartankaasi ka hor isreebkiisa intaan laga qaybgelin waxay u baahan tahay mudan xogeeye diyaargarow xoogan in markaa macallimiinta hadda aad sheegto kale sida hadda macallin Scott oo dalka gudihiisa nala joogo kale in markaa ciyaartooy oo hortago kale sida divisionada aad sheegteen heerar kala duwan ee mini football inaad sameyn doontaan soo ma ka habboona intaan la gaarin ka qaybgalka isreebka koobkaasi aad sheegtay Tunis in lagu qaban doono in la helo ciyaartooy ka qaybgali kara tababaro kala duwan la siiyo xiriirkii ma qorshaysan yahay bismillah waa qorshaysan yahay waa la socotaa mini footballka ma xiriir oo maaragtay soo jiray 1960 la aasaasay oo ilaa hadda taagan tada kale ma aha waxaan rabaa inaan kuu sheego in xiriirka mini footballka hal shilin oo kasoo galay adduunka ama meel kale kasoo galay inaysan jirin oo aan ku wadno contribution dadka ciyaaraha jecel oo Soomaaliyeed meelba ay joogaan lagu wado ijaabkeena sidaas awgeed xiriirka ma sameyn karin in hal sano ka hor markii hal sano ka hor ma jirinba xiriirka ma jirinba hal sano ka hor in la soo waday qaran taasoo kale ka qayb galay fursadaasoo kale ciyaaraha adduunka oo haysta 1 March hadii uu badiyo isla markiiba ciyaaraha adduunka hor ka tagay waqti dheer u baahnaa runtii laakiin annaga tabarteena iyo meesha aan taaganahay darteed waxaan ku talagalay bisha March bisha December ay raadeen aad soo socoto nagu soo fool leh inaan bilowno xulki qaranka inaan diyaarino insha Allah taala macallin Scott بريتو بحياة وعادة دبي إسلامك وكسر لابتو إن شاء الله تعالى وحن بلاد دونا عيالي قريكا معلن وحكم بلاد دونا يوروب وحكم بلاد دونا عرفتي أنت بدن جاء قرش عن معلمين توسس عدن وين إندي إنديين وحا لمن الأكلين عرفتي لوير ولا بلابو وأنا بلابنا وحن رجيننا أنا حكم خليفة إدي سنة باخ مقدرة أمد الصوماليات ودريمك تان أمد الصوماليات دي أتين قرنك الصومالية وهل عيال كتير جلايو إسلامك كاسنا دي وجلوس تجايو عيالها أدوك تجاي كوكا أدوك ما كان حاجة على لهن dadka jecel ciyaaraha iyadoo aan la leeyahay kubad cag basket handball iyadoo aan leeyahay ogtiin ciyaarihii oo Olimbikada waxa taageerayna ciyaaraha fudud taageerinay qofka kubadda cagta qofka kubadda ciyaaraha qofka basket dhammaan waa loo taageeray waxa jecelnahay Soomaaliya maadaama ay tagayso ciyaaraha adduunka halkaas ciyaar ay guuleysto in aad moral support aasiisaan in aad ma aragtay contribution ka geystaan ama xagga dhaqaalaha noqoto ama xagga dhiirigelin noqoto insha Allah taala markii magaca ku socono waa magac Soomaaliyeed ma aha magac aadan ma aha ma aragtay magac Abduqaadir Cabdaay ma aha magac dhaxaq ma aha magac biibay ma waxarna marka qof walba oo Soomaaliyeed meel ay joogto inuu sar istaagto in ciyaartooyda sirarka ee Soomaaliyeed oo ka hortaga wadanka Cameroon insha Allah taala oo ogtiin taariikhda wax oo lagu dhigay halkii mar aan ciyaarnimada oo lagu dhigay waxaan jecelnahay inaan kaga guuleysano oo aan soo xasuusino ciyaarta oo nooga badiyay Cameroon 3-3 aan soo xasuusino insha Allah taala waa ka fiicannahay ciyaartooda waa aragnay xiriirkooda waa xiriir iska galgala marka hadii aan gacmaha isqabsano Soomaaliya anagoo fiirina qabiil anagoo fiirina gobol anagoo fiirina degmo hebel anagoo fiirina Muqdisho gacmaha isqabsano Soomaaliya waa in ay ku guuleystaa biidni Ilaahay Kariim ciyaarahaas adinka ayaana ma aragtay base u noqon doona soo insha Allah waa tahay waxaan jeclahay in aan su'aalaha inta badan ay dadweynaha isweydiinayaan waxa ka mid ah xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ma leeyahay garoomo u gaar ah oo tababaro ay ku qaadanaya ama tartamada uu ku qabto bismillah xiriirka mini footballka Soomaaliya wili garoon ma laha garoon la dhahay garoonka mini footballka oo xiriirka oo la waa ka soo dhahay habeelata ma jirto bas waxa jiro in عاو حالك عم بلقوا درا قدوميها دقمة حمر سجد دورة إنجيل عثمان أحمد عثمان دورة يا ودرايا وجرونكيس نقود داخي وعنكر ودرايا قاسم دار ودقمة بون دار وأصلا نقود داخي الدقمة يخشي قروم داس وعنكو سمعنا كاستمر عن قبلنا يمناسبين كعن قبلنا مدام ولي عند فيشنس كأنا سمعنا بس هو حاجته سومالي إنه نقود داخي شركة جودي فلت وولد ميني فوتبول فريست بيش أغسطس مقالة ودن هنجري فريستي
in lagu deeqo Soomaaliya loogu deeqo garoon caalami ah in loo dhisi doono waliba waxaan sameynay gudoomiye ku-xigeenka mini footballka adduunka in aan ka sameynay raadiyaha ciyaaraha FM in waraysi uu ku dhiibay anagoo daba taagan in dadka Soomaaliyeed ay maqlaan in world mini footballka Soomaaliya uu ugu deeqay garoonkaas 2017 la dhisay insha Allah taala hadii la yiraahdo waxaan ku guudi jirnaa qiimeyntiisa waxaan ku guudi jirnaa in injineerada isugu yeerno waxaan rajaynaynaa garoonkaas insha Allah taala ummadda Soomaaliyeed inaan ku soo xasuusano halyeeyga Soomaaliyeed ciyaaraha magaca ku lahaa qaaradda Afrika ilaa iyo FIFA gaaray garoonka waxaa bixi doonaa insha Allah taala sida guddiga fulinta ay ku heshiiyeen Syndico mini football field yom bixi doonaa insha Allah taala hadii aan ku soo xasuusano taariikhda Farax Weli Cabdi Syndico insha Allah waa tahay mudan xogeeya in qaybta oo daawadayaasha barnaamijkana waa siin doonaa fursad si ay su'aalo marka ay barnaamijka ay nooga wadaagaan ay su'aalo kugu soo weydiiyaan maadaama xilligani aad u diyaar garoobaysaan tartamo kala duwan sida tartan Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika lagu qaban doono oo ka soo baaqday xaaladda dhinaca caafimaadka dalkaasi Brazil ee lagu qaban lahaa ee cudurka Zika virus iyo tartankani Tunisia marka sariirkiisa marka aad ka qayb gali doontaan markii laga soo tago hadda sidee xiriirkiina uu yahay dhammaan gobolada Soomaaliya iyo sida isku wanaagsan yihiin bal xiriirka ka dhexeyn kara mini football gobolada Soomaaliya xiriirkeena aad u wanaagsan yahay sababta keenaysan waxay tahay annaga mini footballka sharciisa waxa delegation waxa la yiraahdo in awoodda center inaysan ahaanin awoodda inaysan xafiiskeena oo xiriirka inaysan ku ekaanin laakiin xiriir walba oo gobolada Soomaaliya degmooyinka iyo tuulooyinka inay madax bannaan yihiin waa la socotaa mini footballka wuxuu gaaray horena oo sheegnay degmada Rundugood gaaray oo weligeed oosan event ciyaareed aysan gaarin waxaan rabnaa inaan gaarno meelo badan sida Xingarool oo kale oo aan jecelnahay insha Allah taala mini football laga ciyaaray taariikhda inaan aragno insha Allah xiriirada aan soo dhisno gobolada xiriirkeena waa 100% sababtoo ah iyaga ismaamulo annaga technically ayay looga baahan yihiin inaan lead karayno oo kaliya ma aha xiriirkeena xiriir dhahayo hebel waa in la doortaa ama hebel waa in la keenaa ama kaas waa in la qabtaan bismillah maaha xiriirkeena waa xiriir open xiriirada laga dhisay Europe iyo kuwa laga dhisay Afrika ugu dambeeyay xiriirka aan ka dhisnay wadanka South Africa aan ka dhisnay oo awees Maxamed Xasan awees Kenya loogu doortay gudoomiyaha iyo mid hadda Zambia naga soo codsan inaan ka dhisno maadaama ciyaartoy halkaas Soomaaliyeed ay joogto inaan ayagana xiriir u sameeyno insha Allah taala xiriir walba waa u madax bannaayay annaga waxaan nahay hoggaanka oo kaliya waa la socotaa waa sida federaalka oo kale sida dowladda federaalka sida loo maamulayo kale xiriirka toos ah oo macna wixii oo xiriirkan oo rabkii ma waa wada shaqeyn waaye wax isla wada arag fikirka waa la soo wada keenaya marka gobolkooda ayaga oo madax bannaan kaliya anaga waxa rabnaa waxay tahay inay shaqada qabtaan insha Allah waa tahay xaj aadan qaybta daawadayaasha aan fursad siin doono anagoo aan eegi doono jaanisada ay heli karaan dhammaan ciyaartoyda Soomaaliyeed dalka dibadiisa ama dalka ku sugan si jaanisada ka qayb qaataan daawadaha ugu horeeya halo assalaamu calaykum هلو هذا مقلي صو مقعة عدك كرقة حمد أديقو ما حسن وحن جعلان لها إنها قيبت التلفون كان نلقى صعته تي في على البرامج كلا صعنين ومد أن كعب سنة مقعة هذا مركز كويس واتاي حمدي هذا برامج كلا صعته كسلو وان فيليا حمدي قد كيا كوغاي waxaan u soo laabanayaa oo jawaabina laakiin waan u jawaabaynaa in kastoo hamigeeda waxba aysan marka naga weydiinaa ama su'aalo barnaamijka aysan ku darsanin bal waxaan jeclaan lahaa su'aalaha inta badan ee dhalinyarada is weydiinayaan waxay tahay kaalin intee la eg ayay marka kaga qaybgana ka heli karaan fursad intee la eg ayay marka ay u tahay dhammaan dhalinyarada da'da yar oo doonaya inay ka qayb qaataan sida hadda ciyaarahan mini footballka oo tartamo idin ku soo wajahayeen sanadka boodin ugu soo bismillah horta waxaan rabaa markuu warayso gabadha Xamdi ina waxir aan dhaho maadaama ay dhahday hanti wadaag degmada Jowhar aan ka soo wacaya Jowhar waa degmooyinka ku faraxsanahay waaye sida mini footballka ay wadaan hadda waxaa socday ciyaaraha ka socday oo mini footballka ka socday waxay fur rabeen xiriirkii xafiiskiisa labaad horseed waxaa ka furan xafiiska ka furan walaashay xaafadeedana mar dhow laga furaa insha Allah taala sida uu sheegay gudoomiyaha mini footballka Jowhar Maxamed Cabdi Miney oo runtii ahliyay mini footballka ah sababtoo ah maalintii la doortay Miney
ilaa ay maanta la joogo kalama goyn runtii. waad xamdi khadka ay ku soo laabatay leeyahay qaybta farsamada xamdi waan kaaga mahadcelinayaa waqtiga mar kale aad barnaamijka jaanis aad u heshay ay ku soo dhawow. dhammaan waa mid lamid ayaan ku leenahay anigii xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xaji Aadan bal haddaad barnaamijka su'aalaha aad nala wadaagayso. ku celi mar kale adigu maasan. waa tahay aad u mahadsan tahay xogayaha waan filayaa xamdi in marka uu fahmay waxaana xamdi ay ka hadlaysan filayaa in ay tahay ciyaartooyda Soomaaliyeed sida waan aragnaa qaaradda Yurub oo kale qaabka ciyaartooyda loo soo saaro kale natiijooyin kala duwan ay ka gaarayaan marka fursad inta wacan ay marka ka heli karaan ama ka gaari karaan ciyaartooyda mini footballka gaar ahaan. waa mahadsan tahay anaga horta xiriirkeena ma xiriir oo cirka soo dhac maaha wuxuu la mid yahay xiriirada Soomaaliyeed ka jira ama ka shaqeeya Soomaaliya ka shaqeeyo jowhar iyo gobolada la midka yani mini footballka hadda xiriir oo gobol tagay oo wax qabtay ama qalab isboorti geeyey ama yani dhiirigelin oo moral support geeyey oo ka horeeya xiriirka mini footballka Soomaaliya ma jiro xiriirkan fursad ay heli karaan ama xiriir ka dhisan gobolka shaqada dhexe iyo gobolada la midka fursad ay heli karaan waxay tahay in ciyaartooydooda oo shalay aan yani awood u lahayn inay ku fikiraan ciyaartooyga in uu imaado Soomaaliya oo matalo xamar inay imaado oo matalo maxaa la sheegay qaranka Soomaaliya ma ku fikiri jirin garsoorka oo garsooraya ciyaaraha oo joogo meel Shabeelle ama gobolada la midka ma ku fikiri jirin inay yimaadaan oo ciyaaro adduunka ay tagaan ama gobolka ay tagaan oo ay soo qabtaan officiation ay soo sameeyaan ciyaaraha laakiin maanta mini footballka wuxuu soo kordhiyay in ilmaha yararka ay gobolada ku nool ay ku fikirayaan inay u ciyaaraan oo loo xusho qaranka Soomaaliya loo xusho taas waa guulaha waaweyn oo gaaray xiriirka mini footballka isla markaasna loogu talagalay gobolada Soomaaliya in lagu baraarujiyo baraarugaasna waa gaarnay gobolkan maaha gobol ka duwan gobolada kale ciyaartooyda oo hay ciyaartooy aad fara badan oo professional oo talent leh waaye waa gobolada aan rabnay inaan ka faa'iideysan insha Allah taala kuwa wax ka socdaan sida hadda gobolka Shabeelle hoose oo kale degmadiisa afgooyay waxa ka socda toddobaadka mini footballka koob loogu magac daray oo ay ciyaarayaan ciyaartooyda oo dugsiyada hoose dhexe iyo sare oo hadda gabagabo maraya Abuukar Aala Suldaan iyo ninka la yiraahdo Ismaan ay wadaan ciyaartooydaas maanta waxay ku fikirayaan oo hamigooda oo yahay saraakiisha mini footballka taagan oo daawanayso oo barnaamij qayb ka ah waxay ku fikirayaan in maalin loo doorto inay ka mid noqdaan ciyaartooyda oo xulka qaranka mini footballka saas awgeed wax ka wanaagsan oo arrintaas oo dhici lahay oo gobolka ka dhici lahaa ma jiraan way maasan tahay waa tahay mid xigta waxay tahay mudan xogeeye ma jiraan garsoorayaal oo tababaro kala duwan oo siiya xiriirka mini footballka maadaama xilligan aad sheegtay in ay idin qorshaysan tahay inaad samaysaan sakashnada kala duwan sida heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad xiriirka kubadda cagta Soomaaliya laba garsooraa jirto oo aan tababarnay maadaama dhinaca maaragtay dhaqaalaha iyo dhinaca waqtiga oo aad u yaray labadaas garsoore ayaa ciyaaraha inta badan noo wada hase yeeshee waxaan rabnaa garsoorihii Mooge oo ka qabtay ciyaarihii Yurub magaca iyo sumcadda Soomaaliya usoo hooyey oo tababarka soo qaatay laftirkiisa oo ku soo qaatay Yurub in uu yimaado magaalada Muqdisho waa qorsheeda wadnaa من 3 إلى 4 قرصورة إن كان قبل والبا أو 18 قبل الصومال كمان لو غلط بش جنوري إن شاء الله مقال مغش قشرة كشرنا وعلى صوت تحرير كله حكوا صعدة اسمية بصعدة ومعلم بوحمان لسنا ولي كومبليت ماهين ما نقدر نوقف الكومبليت قرصورة حكوا بدي أمريكا إمام مركي معلمين تبع ذاتك هذا عن تطور دون بش جنا إن شاء الله تعالى مركز واحد جينا لنا أسبوع عدو بفيش لسه سميني إني قرصورة قبل أو ماستر إن شاء الله تعالى waa tahay markaaynu eegno dalka Soomaaliya goboladiisa ama caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaa ku sugan ciyaartooy sumcad weyn ku lahaa tartamada kala duwan dalkeena Soomaaliya khibrad dhameystirna u leh inay soo saaraan ciyaartooyda grassroots ama da'da yar ee 12 jirada ilaa 10 jirada qaabka marka ay ugu qayb galayaan tartamada kala duwan waxa noqotay xitaa ciyaarada kala duwan inay fursad ka helaan ma jiraan xiriirada aan la sameeysan ciyaartooyda hore ama macallimiinta hore ee dalka Soomaaliya gudihiisa بسم الله حريرك من الفوتبول وحلا وحفا هوم اوف ليجندز يعني سيدي سبا مقعي سنة نيستيس هو هوم اوف ليجندز معناه بحيث هاي من الفوتبول وحا اساسي دادك هراء كجري في عيارها حنا ضانا قصوريال
waxaana sida gudoomiyaha oo kale hadda waa ogtahay waa garsoor cabdixaaq oo kale waa legend ciyaaraha gobolada ahaa oo goolhay uu waqtiga dheeraa macallimiintu waa arkaysaa maxaa la dhahay sheeg macallin Scott oo ah nin magac Soomaali nin ciyaaro magac Soomaali Queen Scott waa yaryahay macow oo qaranka ah yani aniga laftirkeyga xiriirka kubadda cagtana mas-uuliyiintiisa kamid ahaa waana soo ciyaaray ciyaaryahan Soomaalida oo kubadda cagta ayaan ahaan jiray marka cid walba oo legend maanta waxaa arkaysaa cabdixaaq inuu joogo magaalada Minnesota waddanka Mareykanka waxa uu joogo oo asaga iyo maaragtay xogeyaha guud mini footballka America North America Mr. Xasan Goodax waxa ay ka wada shaqeynayaan waxay tahay waa ogtahay ciyaartooydeena hore inta joogto maahan inta kale waxay ku maqan yihiin America Europe ay ku maqan yihiin in laga soo helo xagga ciyaartooyda hore si ay u noqdaan dadka base ku ah ama saldhig u ah mini footballka inta Soomaaliya joogto waa haynaa waa arkaysaa dadkii ugu badnaay ciyaari jiray kubadda cagta ama baaska ciyaari jiray ama ciyaaraha fudud ciyaari jiray Soomaaliya waxay ku jiraan mini footballka Soomaaliya ku jiraan marka mini footballka Soomaaliya waxaa base u ah ama saldhig u ah ciyaartooyda hore tababarayaasha hore garsoorayaasha hore iyo taageerayaasha hore intaba waa tahay marka hadda sidee markaa qorshihiina uu yahay markii aynu eegno badan xogeeya tartamada kala duwan hadda qaarkood kasoo gabagabo gobolada dalka Soomaaliya sidii aad horey aad u xustay hadda tartamada ay u soconaya oo loogu diyaar garoobayo kale gobolada halkee ayaad markaad sharaxaad naga siin kartaa gobolada hadda ugu muhiimsan tartamada ka socdaan kuwee soo gabagaboobay gobolada ugu muhiimsan hadda waxay tahay waxaa tartamo ka socda hadda oo weli tartamada aysan dhamaanin ama continuous ka oo haddii ciyaar dhamaan ciyaar kale ku xigaan Jowhar oo kale iyo Afgoy oo kale iyo Kismaayo oo kale waxaa jira Boorama oo kale asagana iyo Xuseen Barwaaqo oo asagana Garowe joogo oo tartamadiis ay joogto yihiin Banaadir oo kale ciyaaro badan ma ka qaban runtii marka la bardhigo gobolada marka la bardhigo hase yeeshee waxay ayadu beesha noqon doontaa divisionska beesha noqon doontaa insha Allah taala gobolada marka intooda kale ciyaaraha qaarkood way kasoo dhamaaday sida Gedo oo kale iyo maxaa la dhahay marka Jubbaland marka isku yiraahdo waxaan rabnaa marka in bilowga ugu horeeya inaan ka sameyno meesha la yiraahdo Galmudug dagaalada ka soo dooda socota laakiin wasaaradda isboortiga ee Galmudug iyo xiriirka mini footballka way dhameysteen in maaragtay ciyaarihii laga bilaabo waa xiriirka gobolka kaliya oo noo dhiman in ciyaaro si toos ah u bilaabaan balse mini footballka uu ku dhisan yahay waa tahay dib ayaan ugu soo laaban doonaa su'aalaha barnaamijka mudana xogeeye daawadaha qadka usoo gudba ayaan siinayaa halo daawade assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن محمد جامع السلسيباي حويها الأيام الصومالية حاجاتها البلاني بلد فيها قناتي خالد الأمانتي محلية هاي mid la mid ah ku soo dhawo barnaamijka magaca bishaaro ku soo dhawaan kaaga magacnaya waqti horta marka hore aad barnaamijka aad u soo hortay haddaad su'aal barnaamijka aad nala wadaagayso oo xogeyaha واضح
aad u mahadsan tahay bishaaro waan filaya in xogayaha uu si fiican su-aasha ugu fahmay daawadaha kale ayaan jeclahay inaan barnaamijkan ku xijiyo halo daawada kusoo dhow barnaamijka magaca mahad miyaa tiri mahad kusoo dhow barnaamijka haya mahad haddaad barnaamijka su-aala aad nala wadaagaysa maadaama xogayaha xiriirka kubadda cagiraha soomaaliya xaaji aadan uu marti ku yahay barnaamijka waa tahay ku celi oo tartan intee ah junioriska ciyaartooy haddii ay jiraan waan weydiin doonaa xogayaha haddii tartankaasi ama juniorka ama ciyaartooyda da-da yar tartan ay u qorshaysnaan xiriirka kubadda cagiraha soomaaliya aad uga mahadsan tahay mahad waktiga aad barnaamijka kusoo hurtana waan kaaga mahad celinayaa arrinta waxaan usoo ugu horreyntii aan jeclahay inaan ku horeyno bishaaro oo su-aasha ugu dambeysa aan ka qaadanaya bal xiriir intee la eg ah aad markaa nala leedihiin sidaad su-aasha hore aad kuu weydiiyo kale gobolada ciyaartooyda inta badan ee soomaaliya dhan meel weliba بسم الله بشار وما تعلنا يا روتي سدا ما ركتي برنامج أول ساعتي من فوتبول كهالك سنة وجرنا وحي موقع تقف لا ساعتي من فوتبول هرك كل دونا وصامر ولا وما تعلنا يا بشار سؤال شيء ده أو أحد عيارتوي ده صومالي وبقولنا عيارتوي ده قارب يوروب سي حريرك كنا حيو محويه حريرك كنا حيو روتي صومالي ما كان لسه يني يوروب iyo America iyo meel kasta adduunka kamid ah waxaan isku taxalujinay si oo parallel oo sameeyna oo dhisno xiriirka oo Soomaaliya ka dhismaayo iyo mid ka dhismaayo xiriirka naga dhaxeeya ciyaartooyda diaspora ee ku nool Europe iyo America iyo Africa kalaba xiriir fiican naga dhaxeeyo runtii waa arkaysaa in asbuuc ka hor la doortay gudoomiyihii qaaradda Europe taasna waxaa keentay in wadamada Europe aan ka soo dhisnay markii hore xiriir inaan ka soo dhisnay xiriirka diaspora ama xiriirka qurbo joogta mini footballka ee wadan hebel iyo wadan hebel kuwaasaa isu tegay oo doortay macow xuseen macalinkeena xulka qaranka u doortay gudoomiyaha mini footballka qaaradda Yurub taasna waxay daliil cad u tahay in xiriirka mini footballka oo shaqo badan iyo waqti badan uu geliyay waxaa kaloo jirto markaan leenahay ciyaartooyda ku nool Yurub waxaa kamid ah ciyaartooyda ugu magac dheer waxaa kamid ah afgooye ninka la yiraahdo oo Chelsea uu ciyaaro heerkeeda labaad oo macnaha nin Chelsea aad ugu kalsoon tahay uu yahay ciyaartooydaas wuxuu si toos ah oo u ballan qaaday oo offer uu soo sameeyay xiriirka mini footballka ka soo codsaday in uu kamid noqdo ciyaartooyda qaranka oo qaaradda aan dhahay waddanka Soomaaliya taasna annaga iyo macallimiinteena waa aqbalnay ciyaartooyda kale ee Yurub ciyaarta marka waa dareemaysaa in Soomaaliya xiriirkeeda oo ka shaqeeya Soomaaliya kaliya balse uu yahay xiriir baalal badan leh oo meelo badan ka shaqeynaya وطبعا مهد بسم الله الرحمن الرحيم مهد سؤال شيء أو جير رزقه أنا جير ما قبله وصفر إذن قرشة سفر أو جير مجرى لكن حاول لها إنه ولا جيدو عيات أو ريد جنيرو تاس أم لها إنه ولا جيدو مهد تاس عيات تاس ريد جنيرو سيدا ذات برنامج أنا لسه عنا أم لها يا وكجوابني صوته ريد جنيرو برنامج كوحجري عذرة جري وذكر هذا وملارد فيسو عياري أو ريد جنرال لو قبنا أولمبي كذا لفتة كذا خلق الجلسة إلى على عيار تزيتي هذا أي أباعتي سنة صوص عيان لو قبنا يا صوت أفريقيا أو هذا الكود بيجي يقدميها F5 كلام جمشة الشبكة تياغ برازيل أو وضع مستن مرة إنه حنجعلها هي وحنجعلها هي تياغ برازيل له قدميها كبقولوا كاسنا أو يجيني إن ورئيس أسيد عند تي في غرقة عيارها كوا لوكر عيارها كهلا إن شاء الله سوف فاهيو وحوك هلا ما waa tahay barnaamijka ayaynu qiimihiisa ugu dambeeyey mudan xog iyo soo gaarnay daawadaha ugu dambeeya aan jeclahay qaybta daawadaha inaan siiyo halo daawad kusoo dhow barnaamijka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع عسى كسر له برامجك سودا طبعا مع الحكم الحمائي والمقاومة
ciyaartoydii gobolada loogu keeni layahay waa su-aasha ugu horeysa. waa garta su-aasha labadoo laga weydiiyo xabiyaha waxay tahay gudaha Soomaaliya oo fara badan ayaa ka jirta oo heerka koowaad ilaa heerka labaada. marka kooxahan macnaha fanaanadoodii magaalada macnaha lagu soo jeestaan oo nagu dhiirigelisaan in la iibsado si marka horata moral ahaanba inaan wuxuu noqon adiga fanaanada dekedaha aan berihasto beridan fanaanada eman hasto moral sportka ayaa meesha ka soo baxaya. marka abaabul oo qorsho noocaase waa tahay waa tahay ma xasan aad umahadsan tahay su-aasha labaad dhinaca dareeska ee ka hadlaysa iyo dhiirigelinta taageerayaasha dhankooda laakiin waxaan u gudbaynaa su-aasha koowaad oo ahayd inta badan markii tartan uu soo baxayo kale oo qaran Soomaaliya uu ka qayb galayo waxaa laga xula oo kaliya ama ka taga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo la baabi'inayo xaqii gobolada dalka Soomaaliya ciyaartooydooda ay ku lahaayeen bal ka xiriir ahaan mini football maxaa idinkaga qorshaysan؟ بسم الله وما سيا معلنك محمد سؤال برنامج كوري هل كان أكو قبلني أنا كي جوابنا إنه سؤال شيء صلبات هاي وأول معنا يا لك سؤال كواد أنا جا وحنا الله كبد عجيها الله من الله كبد عكسة حرر وحنا يقدون كبد عكسة وحيابا وكهر لاينا وحيت هاي حرر كلا الصومال كجرة وحين كل خماين وكهر لايا حرر كمين الفوتبول كأصوات تاسك الدولة يو dadka arkaysa xiriirka Soomaaliya mini footballka hogaamiya waa dad la socdo waxa uu ka hadlayo macalinka uu ka hadlayo macallin Xuseen uu ka hadlayo waa dad ku soo daalay barnaamijkaas waa dad raba inay sameeyaan isbedel inay sameeyaan sababtaas anagu ka ambaqaadayno waa sababta aan uga bilownay ku dhawaaqista xiriirkeena inuu ka dhaco Kismaayo anagu Muqdisho imaanina waa ilaa iyo aan tagnay Boorama aan tagnay oo Somaliland meesha la kamida sababta uu tagnay waxay ahayd weli ma dhisin xiriirka mini footballka gobolka Banaadir weli waa qabiyo ma dhameystirna xiriirka la ku dhibistiin sababta waxay ahayd in fursadda ugu horeyso la siiyo gobolada Soomaaliya marka ay timaado xul iyo dad la xulayo qaranka Soomaaliya la xulayna in ay magaalada Muqdisho la mid noqoto galguud in la mid noqoto ama Hiiraan la mid noqoto ama Jubbada Dhexe Jubbada Hoose ama Boorama ay la mid noqoto marka xiriirkeena ma jiri doono sida macallin oo ay sheegaysid inuu noqdo xiriir magaalada Muqdisho kaliya ka qaado xiriirkeena wuxuu noqon doonaa xiriir laga soo xulo Soomaaliya oo dhan laga ceefsadii loo Soomaaliland ayaa laga soo xulo doonaa ninka naqdi nasiibkiisa midda labaad barnaamijka wuxuu u baahan yahay oo ka hadlayo marketing waa suuq geyn in la suuq geeyo in maaragtay ciyaartooyda Soomaaliyeed magacooda kor loo qaado arrintaas baaqaan u dirnay tantii ka horeysay anaga kamini football ahaan insha Allah taala ciyaartooydeenna way noqon doonaan ciyaartooy maaliyadooda ama finaanadooda lagu iibiyo iyo kooxaha magacyadooda lagu iibiyo suuqada lagu iibiyo insha Allah taala taasoo taageerayaashana ay soo xirtaan way noqon doontaa waxaan jecelnahay insha Allah taala baaqna u dirnaa laftirkooda xiriirka kale ee Soomaaliyeed waa muhiim Ronaldo xirnaa Messi xirnaa ilmaha neerarka ma yaqaanaan ciyaartooydeena Soomaaliyeed tusaale ahaan deeq Aria oo kale ma yaqaanaan ninka saas oo quruxda badan leh style-kaas leh yani ciyaartiisa arkaysid ma la yaqaano laakiin haddii lagu talagalo in la aqoonsado ama kooxdiisa ay ku talagasho xiriirka ku tirsan ay ku talagalaan yani si fudud lagu aqoonsan doonaa waxaan leenahay marka Messi lagu bedelo deeq Aria lagu bedelo insha Allah taala hadii leeyahay waana mahadsan yahay ninka la yiraahdo macallin Xasan waa tahay qaybta daawadaha iyo waxa su'aasha ugu dambaysan jeclahay inaan barnaamijkan ku weydiiyo badan xogeeye maadaama hadda aad sanad dirsateen xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo kooda bishan adduunka oo dhan marka loogu dabaaldegay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya marka tii ugu dambeysay lagu qabto kala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waa tahay hadda maxaa idin qorshaysan maadaama aad sanad dirsateen tartamo kala duwan ay idinku soo foleeyahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya sida tartanka Tunis sareebkiisa marka aad ka qayb gali doontaan iyo tartankan Rio de Janeiro oo ka soo baaqday dadka tartanka Rio de Janeiro lagu qaban lahaa dalka Brazil South Africa marka lagu qaban doono sida sabwa cudurka Zika virus marka dalkaas ka soconaya hadda qorshaha ugu dambeeya intaan u galno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maadaama aan soo qaadsan guuridii iyo xafladii aan sameynay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ninka maalgeliyey ama maalgelinteeda lahaa barnaamij lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ahaa sanad guuridii koowaad ee xiriirka oo qarash aad u badan fara badan runtii uu galay waxaan rabaa inaan mahad badan u celiyo Xuseen Raage Shiireer oo ganacsadaha ama gudoomiyaha shirkadda Edmond General Construction Company oo madana magaceeda yahay Xuseen oo mahad celinaya ganacsatada Soomaaliyeed ee kalena waxaan jeclaan lahaa ciyaartooyda yararka iyo xiriirkan oo ay asirafkiisa xiriirada yararka ugu horeeyo xirfad badan Soomaaliya ma doon insha Allah taala wala socota Soomaaliya
xiriirada way xadnaayeen oo xiriirada open maysan ahayn laakiin xiriirka mini football wuxuu ka shaqeyn doonaa in xiriiro badan sanadkan insha allahu tacaala oon ka kaalmeyn doono ummadda soomaaliyeed baraarujin doono indhaha u kala furi doono in xiriiro badan ay yimaadaan soomaaliya okay waxaan rabaa sanadkan qorshaha waxaa noogu jirto marka ugu horeyso inaan dhisno deficiency inaan dhisno marka labaad in garoonkii inaan dhisno sababtoo ah xiriir aan garoon lahayn ma socona inkastoo iska jiraan xiriir aan garoon ma lahayn haddana xiriirkeena ma shaqey karo sababtoo waa ogtahay magaalada muqdisho oo keliya ayuu wuxuu ka qorsheeyay 10,002 ciyaartoy inuu fursad siiyo waa la socotaa 6 bilood ugu horreysay markaan joogno 10,002 ciyaartoy ayaan qalabaynay oo aan siinay fursad aan siinay haddii ay jir lahayd oo dhisnaa lahaa xiriir gobolka banaadirna yani 10,002 ciyaartoy way jiri lahayn maanta oo si xoog leh u jiri lahaayeen laakiin waxaan jecelnaha markaan dhamaystirno wadahadalka noo socdo markuu dhamaystirno gobolka banaadir in xiriirka la sameeyo insha allahu tacaala deficiency markaan sameyno garoonkeena aan helno isu diyaar garayno bishii December oo soo socota insha allahu tacaala oo kamid ah sanadkeena labaad kamid ah laftirkeeda in aan xulno ciyaartoydii Soomaaliyeed matali lahayd ciyaarta Maarso insha allahu tacaala ka dhici doonta halkaas iyo marka dambe oo aan isu diyaar garay doono marka ugu horeysa kaliya aan sameyno xulka qaranka wax dambe wayna fududaa doona insha allahu tacaala dhibka ugu horeeya waxay tahay marka ugu horeysa oo aan xulka la sameynayno macluumaadka waa dhamaystiray barnaamijkooda waa dhamaystiray dhaqaalada meelo yaala insha allahu tacaala waa la dhamaystiray waxa ay ku alminta lahayn xirada ay gelayaan wax walba waa dhamaystiray jays way marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala intaas markaa kasoo gudubno waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ee legendska ah kuma xirna inuu kubadda ciyaari jira cagta oo kaliya laakiin legends kasta oo Soomaaliyeed oo ilaa cabdi bila cabdi iyo waa arkaysaa dadkii actresska caanka ee Hollywoodka ee Soomaalida inay maanta taageerayaan Somali mini football inay taageerayaan oo ay Facebook la taagan yihiin inay taageero u yihiin mini footballka sida barqad cabdi oo kale iyo maxaa la sheekaynan oo kale oo diyaar oo ayaga laftkooda inay taageeraan horna usoo sheegaba inay taageeri doonaan waxaan rajaynaynaa inaan soo ururino sanadkan inuu noqdo sanadkii la aruurinayay legendska Soomaaliya inta ka dhigna insha allahu tacaala haddii la yidhahdo وتاي هذا ما سنتين مدن حقيقة وأنا كجمع تعنيني وقت قاعد برامج قاعد أوصل ورتي برامجيدان برامج لهم بدها يعني سلاق بنتونا دو أبو قدرو وقيمة دولها أنا سؤالين وسو ويدين تونان هذين يعني شكلها عن أهل برامج كدو أبو قدرو أنت سيان كوسف ماريا برامج كي فاقدات عيارها تضباط كان مرتيب وها حقيقة جود حرير كوبد عيارها صوماليا أما الصومالي من الفوتبول حاجة آذن عبد الله مهدي وعن أدي هذا ينوم هذا علينا وقت ونو صوري تاني برنامج متكلم إذا أنتوا تطبيقات كده بكوك الميدان وسعيد محمد إبراهيم بيما ينقل أقيا سيدا إيوه نبدأ قليو Takule sportiga tager Takule sportiga tager Sportiga tutita Takule sportiga tager Takule sportiga tager Sportiga tutita Takule sportiga tager Takule sportiga tager Sportiga tutita Takule sportiga tager Takule sportiga tager